عبد العزيز بالله aniga xasan saadkii alwada sida walaalkay sheegay inuu joognaa dhinacayga inta waxa taagan xildhibaanada Axmed Maxamed Cabdullaahi oo kamid ah xildhibaanadii Soomaaliland gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka Soomaaliland Siciid Mira Faarax Giire Maxamed iyo xildhibaan Saalax Maxamuud Diiriye iyo odayaashii xaafadda oo dhan culimadii imaamkii kale Sheekh Siciid Baashe waaya ku soo dhawaada masaajidkii alhuda oo dhiskiisii socdo oo aragtaan oo shaqaalihii gacanta ku hayaan masaajidka warbixinta socdaal idin soo koobo waa aragtaan imika 70% ama 80 dhammaad buu ku dhow yahay waa 5 daba halkan taaganahay waxa weeye garoon floorkii waxay naga hooseeyaa oo ku degi doonaa basementkii 3 dabaqna way naga sareeyaan oo sidoo kale ah 5 daba baa imika dhamaanaya muddo dheer baa la dagaalamayay ما شاء الله هذا وحينو هري project ballaaran baa ku baxay shantii dabaq oo skeletonkiya oo ay ka maqan yihiin laydkii iyo biyihii iyo gogashii iyo waxyaabihii ayuun bay naga dhibaan intiina shaqadiina mar kale ismay taagina way socotaan ee ku soo dhawaada ku duceeya insha Allah qof walba martida sharafta leh xildhibaanada iyo hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka waa soo dhaweynaynaa dadka masaajidka waa soo dhaweynaynaa insha Allah qof walba arag waxa weeye xay cala salaaya waqtigeeda qof kastaana meel kastuu joogo guriga Ilaahay ee inta badan soconayay ee dhiskiisii hadda dhow yahay contributionkiisii haday aqli tahay iyo haday dhaqaale tahay meel kastuu joogo waa loo baahan yahay jazakumullahu khayr welcome brother Baashe bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wadma santiin walaalayaal halkan waa masaajidkii u horeeyay ee dalka Ingiriiska ay dadka Soomaali la yiraahdo meel ay joogaan iyo gobol ay joogaan iyo degmo ay yihiin ay ka dhisteen marka aan magaalada London masaajidkan ay ugu horreeynin Soomaali way isugu tagtay meel ay joogtaba ismahan maanta socdana way isugu tageen meel ay joogaanba gobol iyo degmo aan laga soo qaadin lacag ma jirto masaajidkan 4 milyan oo giniga Ingiriiska abu qiyaasan ku kacaya imikana waxaan weydiinaynaa dadku meel ay joogaanba Soomaaliyeed iyo muslimiintu inay gacan si ballaaran uga geystaan cidana soo booqatana waa mahadsan yihiin cidii wax ka tartiina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaal mariyo inta hadhanna waxaan mataalan ka sugaynaa inay gacan xalli ka geystaan Soomaaliland hadii loo noqdo lacag fiican baan ka soo helay xilli aan u tagnay tabarucaad sanadkii hore baarlamaankii kan ka horreeyana gacan xalli bay ka geystaan waana ku mahadsanayeen kuwan cusubna waan eegaynaa weliba wadaadda u badan oo lagu tirnayo dad diinta salka ku haya waxay geystaan gudoomiyahooda ku-xigeenkooda ku-xigeenkooda oo dad leeyahay waa dad xalal aqal islaamnimada ku toosan marka waan sugaynaa barakallahu fiikum salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidoo sheeba Baashe baarlamaanka aad waxa lagu noqday aad bay noo soo dhaweeyeen Soomaaliland sanadkii hore imika martaba loo tiiro waa soo dhaweeynaa laakiin de martay warqaba waalay جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أتباع مهاتسين مهدبات إلهي باسكالة ودينام باسكالة تأسود ويسين والكفر حصل لي مساجد كان اسميس السعودية قيمان كلام قعية وغاقو حالي الاسمار بيستير كيسا وغيغب غاقو أنا أقول حتى الله يحلو على عن شارك بالله كريم وانت ذلك يعني ما تصوب وغلو shaqadii culimadu qabanaysay oo meel dhal ah u guuleysatay oo boqolkiiba 70 ay dhismeen runtii sharaf iyo karaama anigana ay tahay ugu horreyn waxaan u ducaynayaa culimada iyo cid kastoo ka qayb qaadatay ragga keenay cidii dhaqaalaha bixisay cidii dhistay cidii ku dhiirigelisay cidii lacagta inta leeg inaynu ka gungaarno oo dhisano ku boorisay ku dhaqaajisay culimada aad baan ugu mahadnaqay Ilaahay ka abaalmariyo farinteeda waxaan fariin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka meel ay joogaan maadaama lagu jiro 10 maalmood ugu khayrka badnaa 10 maalmood ugu qiimaha badnaa Ilaahay soo dejiyay ku jiro bishii Dhulxaj in laga qayb qaato sadaqada la soo diro saajka aynu dhamaystiro inta ka dhiman ayaan Ilaahay rabaa inaan fariinta u gudbiyo anaguna ka golaha waxaan balan qaadaynaa inaanu fariinteedana gaarsiino cid kasta oo qosayso anaguna ka golahaan oo ka qayb qaadano insha Allah billahi kareem صدر بارك الله تكبير الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحفرحان واصل ورالدي وريبه sheegeen inaan joogno masaajidka ugu horeeyay ee magaalada London laga dhiso taariikh uu leeyahay waxay noo muujinaysaa in la jecel yahay maadaama la keenay in Ilaahay uu leeyahay magaalada London laga dhisay tabarucaadkana sida gudoomiye sheegay golaha oo ka qeybiyay Allah sida Soomaaliland manahay عام بانكونا arrimaha khayriga inaanu ka qayb galno waxaad ka yeelno idinka in badan aad iyo aad ma naqanaa saanoo soo dhaweysay saanoo daryeelisaan wax kale iska daayay intaan la dhajoono hatta koob shaay naga bixi masha Allah wani garab taagay shaahna siisaan baa noo dheer aad iyo aad mahadsantihiin khayr lahaysay hambalyo gaar ay tahay dadaalkooda guuleysteen waxaan ogahay xaafadda iyo sida masaajidka u baahan tahay fiican oo tarbiyaadka iyo usuul diin ka qayb qaata saajibadu badan baa furan laakiin doorkii culimonimo iyo tarbiyad aan qaadan marka dhadhan gaar iyo dareen gaar ay leedahay baaqa waxaa loo jeediyay gudoomiyaha inta siyaasadda waxaan ka badiyay xagga dhaqanka ruuxiga Suudaan dabadii lama hadlo wax sidaas markuu hadlay gudoomiyuhu ka daba hadlaysan laakiin haddii uu soo dhaweeyay waxa weeyaan xilbaan kula kuma sii ballantu qaaday gudoomiyuhu biidhnilaahi taala qolihii horena oo xanaaqo markaad kacayna kan joogana waa ka gudoomiyuhu noo qaaday dhammaanteed dad muslimiin mahado inta gaabskaan Allah inaga saaro qaybna ku hiigsada أولاً waan soo dhaweynayaa runtii akhyaarta sharafta leh hadda iyo culimada xildhibaanada maanta waxaan joognaa masaajidka Al-Huda sida la sheegay oo masaajidkii ugu horeeyay laga dhiso wax badan baanu ku cibaadeysanay runtii kaalin weyn buu noogu jiray in dhawaad waa naga duusanaa oo dee runtii in dib loo dhiso dib u dhis ayaan la dooninay waad aragtaan maanta wali intii badnayd 170 waa dhisantay waxaan jecel lahay in masaajidka la caawiyo oo Soomaali oo dhan caawiso maadaama ay masaajidka ugu horeeyay ee London laga dhiso ee Soomaalidu ku dhiirigeliyo masaajidka iibsato waxaan jecel lahay badanna runtii baaqaysa telefishinadii meel walba ka sii deynay waxaan jecel lahay insha Allah bismillaahir kariim wadda Soomaaliyeed inay u kacdo oo markuu gacanta saarto oo inta hadhay ay nala dhisto xildhibaanada Soomaaliland ka yimid oo iyo gudoomiyahoodana waxaanu leenahay dadku idinkeedii naga nugu yihiin wadankii markaa ku noqotaan halkaas baa lacagti taalaay ka dhaliye baan leenahay aad iyo aad الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لما أنت الجمعة مبارك لما نضع waxaan ku soo dhaweeyay waan soo dhaweeyay isla waxaan ku soo dhaweeyay ashar buqaa al masaajid baan ku soo dhaweeyay masaajidkaas waxaan la qabataan in badan baa hawsha socotay sidoo walaalyaal sheegay sidoo sheekhu noo sheegay sidoo noo sheegay shaqba maanta waxaan u baahanay inta ay leeyihiin insha Allah ta'ala nitaamal fiikum alkhayr bi'arabta taala ولي هورنا ونوجي هوشي برنامج قبطي بدون كلام ما أنتم مد ودود تيدشن اللي بقى ما أنتم مريالك مرك الحمد لله رب العالمين أنت صار نوح الدي ومنبر من منابر العلم ساجدكم ومنبر من منابر العلم تدكيني يوم تكيني ألك كل كلام النقوة كتجينا لكن هو بتكينا الحرب بتكينا مرك ما أنت الكاسين بسودويني هوش ودلار كيسان وقول كي بصد باوحري النقوة قتال كيف إن شاء الله تعالى واكلا وانا تشوفا كنا حرب بينه لكن انت السفراء باتي مانتا ودك بفكت مادين إذيك هذه سفيرة إذيك النوم معلنة تتكا ما عليكم إلا البلاغ باليسي فرك إن شاء الله تعالى حقنا وسورينا بإذن الله تعالى وانا تكون مع سنتين والكان قوع سنينا وانا لا ركتان إن شاء الله سنة كيسة انت النوت مادام بإذن الله عمر عافية دوية ونسكوات الدونا السقوف فرق وانا كنت كنت إن شاء الله جزاكم الله خير